وحله بالدنيا حقيقة قول بني آدم كوسكوا فقسيني بين أورنكرنا أما ومهم سنة وسكوا فقسيني وينو دمانيو آدني أن رمي سنين مسألة دا سمجرو دادكو دمي وغيريون دونا غيري دا دباديدنا النبي عليه الصلاة والسلام وحينو شاقي سؤاله hadda laynoo sii qadimay in layna weydiin doono su'aalo qof waliba uu hadda haysto jawaabteedana uu hadda qorayo markaad xabaasha gasho in malakul mawdku ku weydiin doono malakul mawdka ma aha laba malago la isu soo diray inay ku weydiin doonaan man rabbuk waxaa la isweydiin doonaa dunida intaad joogtay yaa rabbi ku ahaa waa kuma nebigaagu diintaaduna waa tee waa saddex su-aalooda hadda munaafiq iyo gaalba garan karaan iyo muslimba laakiin malaa'igtaasi oo ah malaa'ig muuqaalkoodu naxdin badan yahay bini aadamkuna markuu naxo wax ma xasuusto bini aadamku hadduu baqo oo uu naxo inta badan saani waxuma xasuusto waxaa uu nabigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam su-aalaha saddexdaa marka la isweydiiyo qofkii dunida markuu joogay jawaabta fiican ka bixiyey aakhirana inuu jawaabtaa fiican bixin doono oo ilaahay baa u ballan qaaday inuu haleeshiin doono يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلهي بصوي دونه وفق مؤمن كينا ربي الله الله إن ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام بايا الرسول يا نبي إسلام كنا والدين تيدي سحو وجوابي دونه أما dadkii munaafiqiinta ahaa ama gaalada ahaa haah bay odhan doonaan way garan waayi doonaan dabeetana waa la tumi doonaa waa la garaaci doonaa xabaasha warkeedu ma yara laakiin waxaan jeclay waxa ka dambeeya inaan maanta ka warramo qiyaamaha iyo dhibta jirta qiyaamaha maalinta qiyaame iyo burburka dunidan ku dhacaya iyo sida ilaahay dadka u soo bixin doono iyo xashriga iyo miisaanka iyo xisaabta iyo siraadka iyo jannada iyo naarta mawaaqif tiro badan weeyaan qiyaamaha iyo dhibta jirta ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa in badan buu kaga warramay qof kasta oo muslim oo fahmi kara qur-aanku wuxuu sheegayaana wuxuu helayaa warkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa maalintaa ka warramaya oo xaqiiqo ka sheegaya kow ilaaha weyn baa wuxuu ku sifeeyey inay maalin weyntay maalintani alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuuhuun liyowmin cadiim yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin ومالين وين با إلهي كتل مامية يعني دادكو يقيسانين أما ملاينين أنهم مبعوثون إن لصابحين دونه ليوم عظيم مالين وين إن لصابحين دونه مالين تاوحك لو إلهي كسفية سبحانه وتعالى مالين علص ثقيلة إنيتي إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا إلهي وحلي كوان قال ما وحي جعليهن تندق دكت بدن لأدونك وحاني كتغ ينبا إلهي لي يوما ثقيلا مالين علص وحكلو إلهي مالين تاوكوت المامي مالين أدق إنيتاي عصير فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ومال أدق با إلهي وقال هذا مرنبا آن فضوضين إذن مالنتان رب السماوات والأرض وصفين يوحلي ومال وين ومال علص ومال أدق
ayaa ilaahay ku tilmaamaya subxaanahu wa tacaala waxaa ilaahay sifaynayaa maalintan baqaha iyo cabsida bini aadamka haysta inuu wareeri doono wax badanba mararka qaarkood aanu kala garan doonin waxaa rabbi ku tilmaamayaa ta uur kale in ilmuhu ka soo dhici doono waxaa rabbi ku tilmaamaya ta nuujinaysa inay ilmaha hilmaami doonto oo ilaabi doonto ilaahay wuxuu leeya yaa ayuha annaas ittaquu rabbakum ina zalzalata saacati shay-un cadiim wardadow waa rabbigiin ka dhowrsada baa ilaahay leeyahy waayo ina zalzalata saacati shay-un cadiim qiyaamaha gelgelinkiisu waa wax weyn baa ilaahay yidhi يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد وما لنا ذرك سبا إلى هيلي تي نوچينيسي وحي نوچينيسي هلمامي دونتو تي أورك لهيد أورك أي توري دونتو dadku aada mooddo inay sakhraansan yihiin baa ilaahay leeyahy ilaahay baa wuxuu leeyahy watara annaasa sukaara waxaad arkaysaa dadka oo sukaara ah sakhraansan wamaa hum bisukaaraa ilaahay buu leeyahy mana aha waxay cabbeen dadku sakhraamay dad wax cabbay oo saa ku sakhraansan ma aha haddana waa la sakhraansan yihi oo maxaa sakhraamayey shiddat lhawl dhibta weynideeda walaakina cadaab allahi shadiid baa ilaahay yidhi ilaahay cadaabkiisa ayaa adag saa daraaddeed baqe cabsi bini aadamku uu cabsanayo iyo baqaha maalintaa jooga waa kaa uu dadku sakhraamayaan waa ka uu nebi maxamed tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ambiyadu oo dadka hormoodkooda ahaa inay ku koobmi doonaan nafsi 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 tayda bes inay ku koobmi doonaan ilaa iyo marka u dambaysa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam la soo gaadho ana laha uu yidhaahdo waa maalin ayuu nebigu ku tilmaamayaa baqa daraaddeed kuwa dulmiga dunida ku sameeya indhahoodu aanay libiqsanin ishu iskuma qabsoonto naxdin daraaddeed isha wuu kala hayaa walaa taxsabanna allaha gaafilan cama yacmalu aldaalimuun inamaa yu'akhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi alabsaar ha u malayn baa ilaahay leeyahay inuu rabbi moogan yahay waxa ay daalimiintu samaynayaan ilaahay wuxuu leeyahy ma moogani ee waxaan dib ugu dhigay maalin indhuhu ay engegaan oo aanay libiqsanin baa ilaahay leeyahay ayaan abaalmarkooda dib ugu dhigay muhطiciina muqnicii ru'uusihim laa yartadu ilayhim طarfuhum waafidatuhum hawaa walxaal ay yihiin baa ilaahay leeyahay kuwo muhطiciina musriciin kuwo degdegaya marka loo yeedho madaxa kor u taagaya ishoodu aanay dib u soo noqonaynin baa rabbi leeyahy caqlina aanu kuba jirin